عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنت بصاحبة قالقة كحنا channel كنا لك شو هذه بندي سودويني مركز الدنيا الدافئة كجس كنتين سلام بقرتينا وذي صمرنايا وحكا عسنا channel كتاتك عصب تاي أو تاي مركز كوباد النصاب وخطي الناس سبسكرايب تكتب بلا لكن فرتي صادو نقطة صاحبك كوباد نقول حنا هذه بعد ما صنت هذا هرون ولا شوفتنا سو كلام حنا سودويني يا أصحابي يقولنا يقصب بيري ونلي هي هذه سودواد صاحب بيال وحي فكري عرفتي هذا قبتنكم تقولوا سوداء تانكس هذا بقى وحنا وذا فنان كيني وحنقول إن بدن كحنا إثيوبيا والفنان خضر كيو أو لو قصر دوي مقالة مقدشة سب ولي بنا غير الحذا لو قصر دوي وحقصر دوي هويين وحقصر دوي دنيار وحقصر دوي وحنقول عد كستوء غير سوماليا أم بمقع الصومالي كهذا شيء أيام مقدشة قصر دوي سي بالمقال كان لا صير أركا ميان كمر ما مقدشة عدي من القرى كمر ننكرا ميان كمر ما مقدشة عدي من القرى كمر ننكرا مرملنا أصحاب تقاليد سيدا قيمها إيا قايها له لو سدوي رنانتي waxay ku dareensiinaysaa muuqaalkaas uu ku dareensiinaya inay jirto wali oo joogto walaalnimadii iyo jacaylkii iyo ixtiraamkii iyo runaantii qadarintii la isqadarin jiray oo runaantii fiidiyoga markaan daawaday qadarin badan aan ka dareemay xaqna uu leeyahay fannaankeena qadarkeeyo in inta ay in ka badan bala soo dhaweeyo runaantii cid kastaaba inay soo dhaweyso xaq buu leeyahay way waa fannaan Soomaaliyeed waa fannaan aad u daayar waa fannaan jacayl Soomaali meel kasta joogto waana fannaan dadaal badan oo codkiisa iyo fankiisuna aad u fiican yahay haddaba fannaankan qadarkeeyo in badan buu heeso qaaday muqdisho waxaanu yiri miyaan ka maqnaan karaa muqdisho cadde yacni waa kaas imikana ka maqnaan kar waay ilaahayna isagoo nabad qaba caafimaadkiisa qaba ku soo nabad celiyay wadankiisii dhulkiisii hooyo runaantii maamooyinka aad u qiiraysan ee soo dhaweynaya yacni waxaan ku leeyahay dareensiinaya inay wali jecel yihiin inay yihiin dad isku duuban Soomaali oo dhan ay yihiin dad isjecel isku duuban fannaankuna la dareensiiyay inuu yahay fannaan la jecel yahay keyga Soomaalida laga jecel yahay muqdishona laga jecel yahay oo muqdisho halku ka dhashay oo aad looga jecel yahay runaantii si balaadhana looga soo dhaweeyay murugadii iyo waxaan kula dhibaatadii uu jeelka yacni ku soo marayna la ilowsiiyay oo runaantii farxad badan ay ka muuqato reereen badan ka muuqato sad wada arkayseen muuqaalka ku wada arkayseenba anaguna oo hambalyeena qadarkeeyo waxaan leenahay ku soo dhawo wadankaaga hooy anaguna waxaan ku leeyahay qadarkeeyo ku soo dhawo walaal muqdisho waxaan ku leeyahay muqdisho kaliya ma meel kasta Soomaali degan tahay ku soo dhawo waxa tahay fanaan aad u daayar oo dadaalkiisu ka muuqdo runaantii aan markoodii mar labaadna u hambalyeeno mid kale fanaankaas ay u soo dhaweynayaan hooyooyinkaas yacni sida loo muujinayo in la jecel yahay oo fanaanka la jecel yahay iyo yacni in xarigiisa laga xumaaday wadankiisa uu dhashayna lagu soo dhaweynayo haddaba marar badan baa la shaaciyay oo bulsho badan shaacisay in la soo daayay fanaanka qadarkeeyo laakiinse ay been noqotay amba noqotay wax been abuuray iyagu iska abaabusheen laakiin hadda imika waa dhab sheekadu waana taa la soo dhaweeyay muqdishona waa taa lagu soo dhaweeyay wadan kasta Soomaali deganteena waxaan leenahay waa lagu soo dhaweyn doonaa insha Allah runaantii fanaankaasna sida ka muuqata yacni jacayl badan baa sii galay uu jecel yahay dadkiisa iyo wadankiisa waayo qof kasta wadankiisa wax ku yahay amba barto u dhashay amba meel kasta Soomaali joogto ayuu wax ku yahay laakiin wadan shisheeye qofna waxba kuma aha mid kale wad aragtay sida fiican ee lagu soo dhaweeyay runaantii dad badan oo qalbiyada ka jecel oo waxaan ku leeyahay sida ay si ka daranba ku soo dhaweyn lahaa ayaa jira wadan
kastoo Soomaali joogtayna waa laga jecel yahay fanaanka Khadarkeeyo waxaan leeyahay ku soo dhawo dalkaaga hooyo iyo dal kastoo Soomaali degto oo kugu soo dhaweynayna waa laga jecel yahay meel kastoo Soomaali joogto waxaan ku leenahay guuleyso anaguna aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa asxaabtayduna aad iyo aad baan maasantiin markood iyo mar labaad weydii mahad celinay waxaan leeyahay habeen wanaagsan